haddaba Somaliland iyada oo markaa waqtiga waanu yareereen iskuuladana ku jiray himilada quraan lahayd ama noo muuqatay waxay ahayd goorma dadka af Soomaaliga ku hadla la midaynaya la isu keenaya waxaanu ku fakaraynay waxaanu ku riyoonay waxaanu ku seexanaynay waxaanu ku soo toosaynay wuxuu ahaa midnimada Soomaaliyeed meel kasta joogta yahay waqtigii isticmaalkuna qaybsaday qayb waxay ka mid ahayd wixii la oran jiray French Somaliland waa dhulka Djibouti imika la yiraahdo iyagu carfaan bay ahayn beriga way bedeleen Faransiisku berigii dambe lagu kacay xamaasadii Soomaalida ay socotay intay magacii meesha Soomaali ka saareen meeshii loo jiray muxuu ahay Somali coastkii ayay yiraahdeen Afar Ciise territory qabaa'ilkii degi jiray bay ku magacaabeen si magaca Soomaali meesha uga baxo Ethiopia way ogeysiinay ku baxday Kenya iyo Ethiopia dagaal fara badan bayna dhaxmaray dagaaladina dhaxmaray dad badan baa ku dhintay oo ku shahiiday arintaasi way shaqay weyday markii ay muddo badan socotay dib baa loo fakiray waxa la yiri siyaasadeedii hore aan wax kaga noqono dunida Ilaahay baa wada nooshahay Carabtu ma midaysna Europe oo dhan weyn ognahay xuduudeedu wadamo badan baa afaf badan lagaga hadlaa oo si badan isu bedela dadka intiisu afa ama isku diin ama isku dhaqan ama isku wadan ma aha xuduud siyaafar badan oo taariikhi ku timaada haddii aynu dunidii kaga hornimay oo powerski waa weynaa dunida kaga hornimay oo kulliga la isugu keen wada tagay aynu waaqaca aqballo oo cid walba dalka ay la joogto ha ku noolaato Djibouti halkiina ku noolaada muxuu ahay dalkii markii la oran jiray muxuu ahay Soomaali galbeed oo Ethiopia iska ahaada dadkii NFD la oran jiray Kenya ahaada heshiis la gaaray bay ahayd understanding la gaaray bay ahayd dagaaladii oo laga soo waaqsaday dagaaladii markii laga xiiqay waxa timid waa hagaaga haddaba Somalilandii hore British xukumi jiray iyo Ingiriis xukumi jiray iyo Talyaani xukumi jiray oo iyagu midowgoodu ku salaysna barnaamijka ay sukaanka Soomaalida oo dhan muxuu soo ku dambeyn doonaa waxa dhacay hadii la oran lahaa de iyagu waa fayta kambani iyagu waaba israaceen iyo shirkadu halkaas ku dhamaatay waxba ma ateene waxa dhacay dagaal aad iyo aad u qadhaadh u farxun xasuuqa kumayaal iyo boqolaalku ku dhintaan waxa dhacday in dayuuradihii qaranka Soomaaliyeed uu lahaa dawladda Soomaaliyeed lahayd inay garoonka Hargeysa inta ka duulaan ay magaalada Hargeysa sida u rusheeyaan oo baabi'iyaan oo dad iyo duuyo wax dhaqaaq aanu jirin waxa weeye waa dayuuradihii dawladdii Soomaaliyeed lahayd ba inta garoonka ka duurtay waliba taaqoon kuma joogine shacbigii iyo dumarkii markay qaadeen ee ka qaxeen magaalada ka baxeen ee loo jeeday carruurtii beelka ku qaadeen iyagoo sii socda ayga kaga daba tagan ku rusheeyay xadka ka gudbaya halkan dheer bay qaadatay in arrinta la iska xoreeyo halkii asran arrintaasi dadka qaar baa yiraahdo muxuu ahay SRM waxa u dhalatay ama ahayd inay kala goyso Soomaaliya iyadu kala burburiso runtaadii sheegaya SRM sidii baka laga sheegayay muddadii ugu dheerayd ana gudoomiye ka ahaa SRM policy-geedu ma ahayn marka hore inay goosato ilaa waqtiga ugu dambeeyana hatta goosa ba ahayn laakiin waxa weeye goosiga waxa keenay kalifaad koobiya sagaashankii markii anigu ka degay maamulka SRM oo lawr bilood ka bacdi la xoreeyay dalkii siyaad barana nidaamka waxa ugu weynaa nabaradii uu geystay SRM markii laga qabsaday waqooyi inta kale israacday iyadoo aan laga tala gelin hadda iyadoo markii hore wax ka tirsan hore israaci hore ayaa markii siyaad bar xamar ka dhacay oo mudaharaad ka dhacay Hargeysa xabar kaga dhacay
لكن عند الردي رنتي وها أودي أسرة أيا أنت دولة دي علم هذه الدولة كقدنا واخدة حمر أيا اللي إذا ماذا سير عية شغال كان هاي سديد اللي يدي رياكسكي كنا شيطتكم واك كاني إن بولسي هربا إذا ما كنا قبل أنت برعلك على يوار وقصرنا وحن لسه نقولنا مرحبا أنا ذي يدي سنة كنا على السلاسة بوليسي كنت من رياكشن بوليسي كنا شيء تاريخ أيها وحنا كنا يران ما يتها تبدأ بأنك واحد وديان وقالوا السؤال الحالة وقد بيسأل وديني أما بلا بدل اللي وديان واتم محوها هاي حالة السلاسة إلى مكان السوماليا ما هزتهم محوها اعتراف السوماليا حال كانوا ويرقناي مركا هلكا ما إذا كبر نانتاي هدا السياسيين تي السوماليان تين هدا الليدرز كوين دلك تين كل ولا سوق مد الدوات تاس ودد اسكو أفا اسكو دينا اسكو نقرة اسكو درا بورا إيو وبيال إيو وحول حياتنا مجرى هلكا بحاكس وتقل كرا أرت الرتي وحوي ماشى التاريخ عين كاسله والسوماليا أي رومان تكور قبل حالات أي كسو قنتها أي كسو قنتها كور قبل وأي سكست أنت الليالي وأدونك يا عالم كيسوق تجي إلى إنك حمر يقول لنا دجكر لا يا حمر كليه أفريقيا عيدا ملوكري دوري ما عيدا ملوكري ولا سوق تجي إسكنداف كسماه إسكنداف بلا كلا إسكنداف ودك قبل تسكر بركة waxaa arinta aanu kaga jawaabnaa mar walba horta taariikhiyan ummaddu waxbay ku goosatay distoor bay samaysay iyada shacbiga go'aan kale siyaasigu mar qofku ma laha ummaduna waxbay goosatay laakiin imika dadka ka hadlaya wada hadal horta cidda la hadlaa waa tee imika inagu dalahaan iyo dalahaan haddaynu reer Soomaaliland nahay waxaan wanaagahay lama jeclin walaalheen waxaanu jecelahay mantiqada dooleena bada ka dhacdo waxaanu jecelahay xamar nabad ku soo dabaalto waxaanu jecelahay dadku nolol wanaagsan ku noolaado waxaanu jecelahay nabadgelyo ku soo dabaalto laakiin maanta halka albaab inooga furani iyo waxaanu ka qaban karaa oo muuqda oo maanta inaga gacanteena ku jira ma jiro laakiin ilaahay waxaan u rajaynaynaa dunida kala mid nahay gacanna ka siinaa wixii nalaga baado in halkaas sidii nabadgelyo iyo xasilooni loogu soo dabaal karayo loogu soo dabaalo لكن ما أنت أشده نوي للسوماليا هرمرين تهدا اعتراف رادين تهدا ديمقراطية تهدا إلى لين تهدا أيام كل شقيرنا كانوا كل شقيرنا حزبنا ما كل شقيرنا واقع كانوا ما أنت الدور شيء سووا تاجنا واقع كانوا هرسيدنا أنا كاوي مركا عنون بعد نوع حزبك يا حالات الدلك ما أنت كل شقيه هاي وين وقنا هاي dalkeenu ilaahay maada ka gaadhay nabadgelyo ayuu marka relative weeye marka loo eego khatar badan iyo dhibaato badan way soo mareen way ku yimaadeen dagaaliya ka caqf way soo mareen laakiin wax fara badan baa laga soo gudbay halkankii ka soo wax badan baa laga soo gudbay meel baynu gaadhay bajunti baynu gaadhay annagu maanta haddaan xisbiyada mucaaradka nahay waxaan soo aragnaa cidda maanta nabadgelyada iyo wada jirka ilaalinaysa inay yihiin xisbiyada mucaaradka inay yihiin taar ku shaqeynayna taar weeye كانوا كل شقينا وحوي وورجيرك هي نبتقلير هي مدمدا عينو هايسرنو ما أنت بركة لقوي مادة خطراء لقوي مادة مرة بالمركة وهذا وحنا وحكي سينو قارس سكوينو وجودهن لكن الرماها هذول الشعب كنهاي علماء الدين كنهاي اللي يرد النهاي سياسيين كنهاي أحزاب كنهاي إذا ما كنهاي الملو يسوي شيء سن أنا قلت له لا نتاس ويا تارك شقينا تاوية تقارن كأنو جور سيدنا أنا تاوية وحي كلاي مادة وحوي ودلك الجديس وحكبدل كسياسة دقاب كلو قلنا قبو سياسة دلو قلنا هرو مركب دلك هرو مركب بالشلة كان اللي يرده ودويك تعلينته عافماتك سيدي مكلا شيء أرما أبهن أمبدا كعنكرة هرو مركب ويو أرما ركالنا أرما أقول له مانتا ما ملك شراء وكف الشري أيان در ما ملك مانتا داهر يالكاهن horta marka ugu horeysa waqtigii dimuqraadiyadda waxa asaas u ah wax walba sharciyad beli sharciyadda iyo dimuqraadiyadda principles ay ku fadhido illa ilaasho weey maamulka maanta jira
dee